dowladda waddanka Iiraan ayaa dalalka gacanka Carbeed ku eedeysay weerarkii shalay ka dhacay magaalada Ahfaas ee waddanka Iiraan. Hogaamiyaha ruuxiga ah ee dalka Iiraan Ayatollah Khamenei ayaa sheegay in weerarkii lagu qaaday meel ay gaadho ka ciyaar ku soo bandhigayeen militariga koonfurta galbeed ee waddankaasi uu ahaa weerar lala xiriirinayo saaxiibada ama xulafada Mareykanka uu ku leeyahay gobolkaasi. waa sida ay hadalka u sheegeen. Mr. Khamenei ayaan carabaabin wadamada gobolka ee uu aaminsan yahay inay weerarka ka dambeeyeen. ugu yaraan 29 qof ayaa ku dhimatay, 10 kalena way ku dhaawacmeen kadib markii rag hubeysan ay rasaas ku fureen magaaladaasi Ahfaas. askarta ayuu markii uu weerarkaasi dhacay ku cararay meel gabood ay ka dhigtaan, halka dadkii rayidka ahaana ay lafahooda la baxsadeen. waxaa sidoo kale weerarka ku dhintay 4 ka tirsan kooxaha mintidiinta ah ee weerarka soo qaaday. koox maxalli ah oo asalkoodu Carab yahay oo gooni u goosada ayaa sheegtay mas'uuliyadda weerarkaasi shalay lagu qaaday ciidamada waddanka Iiraan. wararka ayaa intaasi ku daraya in kala bar dadkii weerarka ku dhintay ay ahaayeen ciidamada ilaalada kacaanka Iiraan. waxaa sidoo kale mas'uuliyadda weerarka sheegtay kooxda la baxday dowladda Islaamka. wasiirka arrimaha dibadda ayaa u muuqday inuu farta ku fiiqayay in dadka weerarka geystay ay soo hubeeyeen Israa'iil ama wadamada ay xulafada yihiin Mareykanka ee gobolka gacanka sida Sacuudiga. magaalada Ahfaas ayaa ka mid ah magaalooyinka ugu dambeeyay ee dalkaasi oo ay ka socdeen dibadbaxyo looga soo horjeedo dowladda, kuwaasoo shacabka ay uga cabanayaan sixir barar iyo qiimaha badeecadaha oo sare u kacay. ilaalada ka hortagga ganacsiga foolmaroodiga ayaa la dejiyay waddanka Botswana, kuwan oo si gaar ah u ilaalinaya ka ganacsiga foolmaroodiga sharci darrada ah. qorshaha lagu ilaalinayo maroodiga ayaa qayb ka ah dadaalada waddankaasi Botswana uu ku xoojinayo ballanqaadkii ilaalada duurjoogta. waddankaasi Botswana waxa uu ka duulayaa warbixin ay dhowaan soo saartay ururka aan xuduudda lahayn ee ilaalada maroodiga, ururkaasoo lagu magacaabo Elephants Without Borders. waxaana ururkaasi sheegay in maroodi badan ay laayeen isla markaana foolasha kala baxeen rag qowlaysato ah dhinaca waqooyi ee waddankaasi. ururo kale oo maxalli ah ayaa iyakuna ku eedeeyay dad muwaadiniin ahi inay yihiin danaystayaal aan u aaba yeeleen waddankooda iyo weliba muwaadinimadooda. qarniyaal ka hor ayaa foolmaroodiga laga isticmaali jiray meelo dhowra. waxyaabaha foolka laga sameeyo waxaa ka mid ah waxyaabaha ay dumarku isku qurxiyaan, kubadaha cagta iyo weliba bilyaardiga iyo sidoo kale biyaanada muusikada lagu garaaco. qiimaha foolka maroodiga ayaa si xawli ah kor ugu kacay sanadahan dambe. dabayaaqadii sanadkii 1989kiina waxaa si rasmi ah loo mamnuucay ka ganacsiga foolmaroodiga. wararka ka imanaya dalka Nigeria ayaa sheegaya in koox budhcadbadeed ahi ay afduubeen shaqaalaha saarnaa markab. weerarka ayaa waxa uu ka dhacay xeebta Boni oo u dhow meesha loo yaqaano Port Harcourt. shaqaalaha markabkan lagu magacaabo Masiel ayaa waxa ay sheegeen in budhcadbadeedani ay markabkan oo siday qamandi ay xoog ku soo koreen. budhcadbadeeda ayaa la tegay 12 ka mid ah 19 shaqaalaha ahaa ee markabkaasi saarnaa. shirkadda iyadu iska leh markabka ayaan weli shaacin dalalka ay ka soo kala jeedaan shaqaalihii saarnaa markabka la afduubay. ciidamada badda ee dalka Nigeria ayaan xaqiijin karin dhacdadan, balse waxa ay sheegeen in doomo qoryo ay ku rakiban yihiin ay halkaasi u direen si ay baaritaan u sameeyaan. weerarada ay qaadaan budhcadbadeeda ayaa ku sii badanayay biyaha dalka Nigeria muddooyinkii ugu dambeeyay. hore ayaa shaqaale markab saarnaa lagu afduubay goobta lagu magacaabo Port Harcourt, waxaana la haystay muddo 4 toddobaad ah. Siciid Axmed Tamreyse, wararka telefishinka caalamiga ah ee Star.